tababarkan oo loo qabtay ku dhawaad 100 arday oo wax ka barata jaamacadaha dalka oo lagu baranayo xirfado muhiim ah oo ay si wada jir u soo qaban qaabiyeen xarunta tababarada mustaqbal iyo hay'adda Geel ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Maxamed Jimcaale oo ka socday hay'adda Geel oo munaasabada furitaankeeda ka hadlay ayaa kula dardaarmay dhalinyarada ka qayb galaysa tababarka inay ka faa'iideystaan cilmiga macallimiintu ay barayaan. إن شاء الله سبنار كشوش شرف لي هالومس وقيد قلا هلا بدنا الله نعبر مانجمنت تنا وحنقول ده بدار مايا إن شاء الله تعالى مناسبات كثير من حكومة ونوصل بالبسان إن هذا كان يقول بالبسان معلومات اللي هو ترجلنا تقول بالبسان إن شاء الله معلومات هو نحسنات قبضان nuuridiin xikam cabdiraxmaan oo ku hadlay afka mas'uuliyiinta xarunta tababarka ee mustaqbal ayaa sheegay inay ka go'an tahay xarunta tababarka mustaqbal inay dhisaan mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed. mustaqbal maadaama ay magacaas ku sheeganay inaan dadkaas u hadalno aan iraahno dhalinyarada waxay u baahan yihiin in nin uu leeyahay idea fiican oo fiirinay deegaanku meesha ka yimid shakhsiyadiisa iyo qofku yahay وعرفنا أنك أيدي ذلك ينفعها employment بدنا يسمين كتا أو سي production أو youth unemployment سيك لو يريو مركا employment يسمين كتا هذا يشغاليسين كتا أيدي هذا نوفي هانتاي أنا ما أدري ميل ولا بعلق الله هرمون نبدأ لو هدي لا يرى تكلم كنا كل واحد فكرنا تو كنا هدي لا يرى training كtraining ما هم schools كيا ما جامعي اللي هو هذا وهكذا oo maaragtay brainstorming ay badnaan doono discussion ay jiri doono group discussion ay jiri doono hadii la yiraahdo marka hadii la yiraahdo maanta evaluation ka markii la buuxiyo oo after 10 days seminarka markuu dhamaado hadii la yiraahdo waxaan noqon doonaa dad perception-kii iyo suuq shaqadii iyo maaragtay shaqo abuurkii ka haystay waa badin iska bedelay hadii la yiraahdo. Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo ka mid ah la taliyayaasha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada horena u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ugu baaqay xarunta tababarada mustaqbal iyo Geel inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qalin jabiya jaamacadaha dalka. waxaa jira simaad ama calaamo ama astaamo lagu beero ayaa jirta ama aqligiisa ama qudraadkiisa ama wixdiisa midna waxaa laga bartaa bay'ada markaad ku nooshahay iyo dadka aad la nooshahay iyo naftaada wixii aad gelisay ayaa laga bartaa sifooyinka marka liibaan cabdi cabdo warbaahinta qaranka Muqdisho.